BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal sidaad u dhantihiin qodobada barnaamijka maantaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ansixisay guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashadii dhawaanta dhacday. The presidential election of the 26th October is hereby upheld as is the election. sharci ahaan maxkamaddu xagay wax ka eegtay waraysi ayaan amuurtaasi idinkaga haynaa. Zimbabwe siyaasad qasan baa weli ka taagan, odaygii Mugabe ahana weli wuu soo taagan yahay, dadku geeriyooday Hindiya iyagoo sawir iska qaadaya, ciyaarihiina war ayaan idinkaga haynaa. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf, aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. duurka maantaahna waxaa noo waramaysa Faadumo Macalin Abuukar. mahadsanid Catoosh. waxaa dhacay waqtigii kama dambaysta ahaa ee xisbiga talada haya ee dalka Zimbabwe uu u qabtay madaxweyne Robert Mugabe inuu isku casilo amaba uu wajaho in markaasi xilka laga qaado. khudbadu axadii jeediyay ayuusan Mugabe ku xusin inuu iscasili doono. xisbiga ZANU-PF ayaa sheegay in marka la gudbo waqtiga madaxweynaha loo qabtay ay ku dhawaaqi doonaan dadaalo xilka looga qaadayo. madaxa ururka halyeeyadii dalkaasi xoreeyay oo lagu magacaabo Chris Mutsvangwa ayaa sheegay in 37 sano oo Mugabe xilka hayay kadib ay tahay inuusan xilka ku sii dhaganaan xitaa 37 ilbiriqsi. We have gone to the court today. waxaan maanta aadnay maxkamadda. waxaanu rajaynaynaa in marka kiiska la geeyo lagu caddeeyo in Mugabe uu dayacay shaqadiisa, isagoo ku qasbay madaxa ciidamada in uu soo farageliyo, kadibna uu xiro dambiilayaasha. ciidankuna shaqadooda ayay qabsadeen. dadka Zimbabwe ayaa sabtidii hawsha ka sii waday halka ay ciidamada uga tageen. tanina waa sababta aan ugu baaqayno dadka reer Zimbabwe inay dhahaan guuxiisa ayuu ka dheereeyay. marka waxaan doonaynaa inaan xaqiijino inuu hadda tago. So we want to make sure that he lives now. maxkamadda ugu sareysa Kenya ayaa ayday guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee la qabtay bishii la soo dhaafay. doorashadaasi ayaana waxaa ka qayb galin hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ku dooday in doorashadu aysan ahayn mid cadaalad ku dhisan, sababtuna ay tahay in guddiga doorashada uu ku guuldareystay inuu hirgeliyo isbedeladii la soo jeediyay. shiinaha ayaa ku baaqay xabad joojin ka hirgasha gobolka Rakhine ee dalka Myanmar si loogu ogolaado inay dalkooda ku laabtaan 100,000 oo muslimiinta Rohingya ah kuwaas oo gobolkaasi ka qaxay. xukuumadda Beijing ayaa mar walba ka fogaata faragelinta arrimaha dalalka kale. shiinaha ayaa mashaariic dhismo oo muhiim ah ka fulinaya dalkaasi Myanmar. ugu dambeynna kumanaan beeraley ah ayaa soo bax xabasho ah ka dhigay magaalada caasimadda u ah Hindiya ee Delhi, iyagoo ka codsanaya dowladda inay ka cafiso deymaha isla markaana ay dejiso qiimo wanaagsan oo laga siisto wax soo saarkooda. kumanaan beeraley ah ayaa sanad walba isku dila Hindiya sababa la xiriira abaaraha, dalaga oo aanan u soo go'in iyo weliba deymo lagu yeesho. warkii dunidana waa naga intaa Catoosh. aad baad u mahadsantahay Faadumo. duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale. maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya ayaa maanta go'aan ka gaartay dacwad ka dhan ahayd doorashadii dhawaanta ka dhacday dalkan. maxkamaddu waxay tuurtay oo ay waxba kama jiraan ka soo qaaday dacwaddaasi, taasoo ka dhigan in natiijadii doorashada ee madaxweyne Uhuru Kenyatta lagu doortay ay sharci ahayd. bashkas jug soo dhacay ayaa aad wararkan ula socdo hadda stuudiga ila fadhiya. bashkas bal faahfaahin nasi.
waa macsantay Catoosh sida la filayay bamaarta saaki garsoorayaalkii markaa ka tirsanay maxkamadda sare ee dalka Kenya oo lixdaaya marka u filiistay arintaas markuu go'aankaas gaarayna waxa arinta marka go'aankeeda iyo wixii lagu soo go'aamiyay keeskaas ka hadlay Maraga oo xakiimka sare ee maxkamadda dalka Kenya waxaana hadalkiisa ka mid ah sida tan. Petition number 4 of 2017, Njonjo Mue and another versus the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission and 3 others. dacwadda lambarka afraad ee sanadka 2017 oo uu John Jomua ka gudbiyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo dacwooyinka kale ee la isku qabtay ayaa dhammaantood la diiday. sidaa darteed doorashada madaxtinimo ee dhacday 26 Oktoobar waa mid sax ah oo lagu doortay Uhuru Kenyatta. The presidential election of the 26th October is hereby upheld, as is the election of the third respondent. xaakimka ugu sarreeya maxkamadda Supreme Court-ka ee dalkan Kenya ayuu ahaa bashkas mucaaradka ama muxaafadka cid ka hadashay go'aankan ilaa hadda. mucaaradka ilaa waqtigan weli kamayna hadlin arintan waxay marka ay ka qabaan waxay ka oran doonaan inkastoo bay sheegan marka waqti dambe inay marka arintan ka hadli doonaan balse mar ay maartay maxkamadda inta lagu sugnay taageerayaalkii maartay xisbiga Jubilee oo ka socda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mar meesha maartay ay joogeen ay jawiga wuxuu ay sida tan. wahagaag sawaxankaasi aad maqlaysaan waxa uu ahaa jawiga sidii uu ahaa markii maxkamadda lagu dhawaaqay waxaana damaashaadayay sida uu bashkas noo sheegaba taageerayaasha xisbiga Jubilee dhinaca kale waxaa jiray rabshado iyo buuq ayaamahan bataagnaa oo runtii waliba dhimasho fara badan ay ka dhacday mucaaradkana ay ka hadleen maxaa ugu dambeeyay wararka rabshadaha bashkas. Catoosh magaalada Kisumu oo meesha uu ku xoogan yahay maartay ninka loo yaqaan Raila Odinga oo asaga maartay madaxa NASA ururka NASA ayaa marka maanta saaki mar alla markii saan loogu dhawaaqay go'aankaas ayaa marka gaari baa lagu gubay wadada dhexdeeda mudaharaad badan ay marka dadka isku soo baxeen ayagoo maartay harkad geliyeen gabi ahaanba socodkii iyo ganacsiga ka jiray magaalada Kisumu meelii magaalada dhinaca Nairobi aad u soo laabtay oo maartay shalay 4 ruux maartay lagu diray meesha loo yaqaan Babadogo iyo Madare yaa saaki xasilnood kadib marka la geeyay meesha eed marka ciidamo badan oo ka tirsan booliiska dalka Kenya ilaa waqtigan marka waxa rabshado oo laga soo sheegay magaalada Nairobi ma jira hadii ay ka tagi waayso meel kasta waxa lagu arkaa dad maartay ka tirsan xisbiga Jubilee oo u dabaaldegaya marka go'aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Kenya. aad baad u mahadsantahay bashka jug soo dhacay oo si dhow ula socday wararka go'aanka maxkamadda ku saabsan hadduu Allah awood la ogolaado idaacadeena 5 galabnimo ayaa wararkan oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan sidoo kale website-keena bbcsomali.com ayaa macluumaad go'aanka maxkamadda sare la xiriira aad ka daalacan kartaan isla wararkaasi ayaan ku jirnaaye sharci ahaan waxa la isweydiinayaa maxkamaddu maxay waafajisay go'aankeedan amurtaasi waxaan weydiinay Axmed Ibrahim Ogle oo ah sharci yaqaan Soomaaliyeed oo su'aashan sidan uga jawaabay. maxkamaddu waxay maanta sameysay waxa waaye waxa la yiraahdo way summarize gareeyeen sababaha maysan soo saarin sababaha waxay soo saareen wax wadin 21 bari gudahooda ay soo saaraan insha Allah marka way guud mareenaad leedahay wixii loo soo gudbiyay dacwooyinka sababaha dib ay soo saari doonaan malahaaga marka maxaad u maleen maadaama garsoore aad tahay xagee wax ka eegeen kulli maxkamadda waxa horta la su'aalooyin badan inkastoo ay ugu weeyeen ilaa 8 su'aalood siday u muuqata maxkamadana ay go'aan ku gaartay waxay tiri kaysaska la horgeeyay kaysas macna ku fadhiima aysan ahayn maadaama ay maxkamadda tiri kaysas ma ahayn oo macna ku fadhiyay taas arrin weyn ah oo tusinaysa in maxkamadda la horgeeyay wax weyn oo ay dhihi kareen doorashada dhacday ma waafaqsaneen sharciga taas waxay ka dhigan tahay dadkii dacwooday dacwadoodu maysan cuslayn ما يسنقصلين سida ay u dhaxeen waay laakiin waxa muhiim ah in la fiiriyo sababahooda maadaama ay hor yaaleen su'aalooyin ilaa 8 iyo wax ka badan oo sharciyan laga rabo marka ay go'aan gaarayaan sababahoodan ay bixinayaan inay ka wada jawaabaan 8 ka su'aalood iyo inta kale marka 8 way ka wada jawaabeen kama aysan jawaabin hadda way isku soo koobeen waxay yiraahdeen case-kana la hor keenay wax macna leh kuma uusan fadhinin marka waxyaalaha qaarkoodna waxay ku haboon tahay in hal looga jawaabo su'aalooyinka
marka 21 bari gudahood ayay hadda sharxi doonaan sababta dacwadan ay u tuureen oo ay u yiraahdeen doorashadaas sharci bay ahayd oo qalad kuma jirin saas bay noqon waa gartay ugu dambeyntii ma u malaynaysaa mucaaradka inay ku qarci doonaan go'aanka maxkamadda cabdirasaaqow maxkamadda waa maxkamadda dalka ugu sarreysa waa hore markii ay ka go'aanka dhankooda looga dhigay way ku qanceen dowladana way diidawaagi uma malayna inay wax weyn ay ka keeni karaan hadda sharcigaa saas u shaqeeya waa inay aqbalaan wixii kaloo ay samayn karaan kolley waa ayakun bay u taallaa marka waxaad leedahay meel kaloo la aadayo ma lahan mar haddii maxkamaddii dalka u sarraysay ay amuurtan ku dhawaaqday maadaama ay maxkamadda go'aankeeda ay gaartay haddaad fiiriso qodobka 141 wax u dhaxeeya 7 bari gudaheeda baa madaxweynaha lagu dhaarinaya marka waka ogle oo ah garyaqaan magaalada Mombasa isagoo jooga ayuu qadka telefoonka iigu waramayay wahagaag Facebook u galo Sayid Cusmaan Sheekh Ibrahim Boram uu jooga uu yiri go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ka soo saartay doorashadii dhacday waa mid siyaasadaysan oo dhinac u xaqlinaysa mana ahan go'aan ka tarjumaya danta Kenya Mawlid Maxamed Samatar Hargeysa uu jooga isna wuxuu yiri maxkamadda ugu sarreysa Kenya ee ansixisay guusha Uhuru waan soo dhaweynayaa waayo horay bay Soomaalidu u tiri libaax laba raqood lagama wada kiciyo mucaaradku qaladkii ugu weynaa waxay galeen markii ay diideen inay dib ula tartamaan Uhuru Kenyatta qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali wahagaag halka wali aad nagala socotaan waa BBC barnaamijkii duhurnimo bartanka kaga jirnaa waxa soo socda muran siyaasadeed oo dalka Jarmalka ka taagan balse haatan xaaladda cakiran ee dalka Zimbabwe aan aadno waxa dhacay waqtigii kama dambayska ahaa ee xisbiga talada haya ee ZANU-PF ee dalka Zimbabwe uu u qabtay madaxweyne Robert Mugabe inuu isku casilo ama uu wajaho in xilka laga qaado khudbad uu xalay jeediyay ayuu Mugabe ku xusin inuu iscasili doono xiisadda siyaasadeed dalkaasi ayaa wali cakiran amuurtaasina faahfaahinteeda waxa soo koobaya Cabdiqaadir Yuusuf Cali xisbiga haya talada Zimbabwe ee ZANU-PF ayaa sheegay inuu bilaabayo hanaanka xilka looga qaadayo madaxweyne Mugabe hanaanka rasmiga ah ayaa la filayaa in uu bilowdo talaadada berri ah markaasi oo uu furmi doono baarlamaanka dalkaasi waxaana loo baahan yahay in 3 meelood 2 meel xildhibaanada ay u codeeyaan mooshinka ka dhanka ah ee Mugabe xisbiga ugu weyn mucaaradka Zimbabwe ee MDC oo horay ugu guuldareystay inuu mooshin xilka kaga qaado Mugabe ayay u badan tahay inaanu taageerin qorshahan balse uu dalbado isbedel buuxa xiisadda ka taagan Zimbabwe ayaa bilaabatay 2 toddobaad ka hor kadib markii uu Mugabe xilka ka qaaday ku-xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa kaasoo hadda xil hogaaminta ZANU-PF kala wareegay madaxweynaha dhanka kale hogaamiyaha ururka halyeeyada u soo dagaalamay Zimbabwe ayaa sheegay in xilligan la joogo markii uu Robert Mugabe siyaasadda ka fariisan lahaa ururkaasi ayaa ku baaqay dibadbaxyo ka dhan ah Mugabe iyo waliba in sharciga lala tiigsado ardayda dhigata jaamacadda Zimbabwe ayaa dibadbaxyo sameeyay waxaana ay ku baaqeen in shahaadada ugu sarreysa ee PhD ee jaamacadda kala laabato Grace Mugabe waxa ay ku doodayaan in marwada shahaadadaasi la siiyay kadib markii ay jaamacadda dhigatay 2 bilood oo kaliya Cabdiqaadir Yuusuf Cali aad buu u mahadsan yahay Facebook mar aan ku noqdo Maxamed Cali Cali wuxuu joog balidhiig wuxuu yiri run ahaantii haddii madaxweyne Robert Mugabe uu ku adkaysto inuusan xilka ka degin wuxuu wadankaasi galayaa qalalaase saameeya dhammaan horumarkii iyo wadankii geedi socodka nabadeedna waa uu halaabaya balse waxay aniga ila tahay in loo daayo xilka uu ku adkaysanayo odayga intaanan inkaar laga gelin wahagaag sheeko xiiso leh oo Hindiya ku saabsan ayaa noo soo socota balse haatan halkaa iyo Jarmalka aan qabanno dalka Jarmalka waxa ka taagan isfaham la'aan siyaasadeed kadib markii Angela Merkel ay ku guuldareysatay inay dawlad wadaag la dhisto xisbiyada kale waxaana xisbiyada kale ay isku eedeynayaan inay ka baxeen wada hadaladii socday madaxweynaha dalkaasi Frank Walter ayaa Angela Merkel la kulmi doona dhawaan warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxa soo jeedinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil Angela Merkel iminka waxa ay wajahaysaa xaqiiqda inay weydo shaqadeeda waxa ay sheegtay inay ka xun tahay in aan guul laga gaarin wada hadaladii dawlad wadaagga lagu dhisi lahaa waxaanay ku tilmaantay maalin loo baahan yahay in loo fakaro maanta ayay la kulmaysaa madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier oo isagu leh awoodda uu ku baaqi karo doorasho cusub waxay ku ballan qaaday inay samayn doonto wax kasta oo suurtagal ah toddobaadyada soo socda oo ay xaaladdu adag tahay Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren
waxaan rumaysanahay inaan ku joogno waddo taasi oo aynu ku gaari karno heshiis. dabcan waxaa jira waxoogaa xadidaad ah. tani waxaa qayb ka ah xulafada, halkaasoo dhinacyadu ay tahay inay ku helaan midkood, kan ay tahay inuu meel mari karo. sidaas darteedna anigoo tixgelinaya FDP waxaan ka qoomameynayaa inaynu heli weynay xal dhab ah. ma cadda iminka in loo baahan yahay in la qabto doorasho cusub iyo in kale. xisbiga bidixda dhexe oo kaalinta labaad galay doorashadii dhacday Sebtembar waxa ay ka fikeri karaan in ay diidaan dowlad wadaag ay la dhisaan Mrs Merkel, laakiin rajadeedu ma wanaagsana. cabdixaafid aad baad u mahadsantahay. waa hagaag sheeka ku saabsan hindiya iyo dhalinyarada oo laga digayo sawirada ay mobilada isaga qaadaan oo khatar keenay ayaa soo socda, balse haatan ciyaarihii kooxda West Bromwich ayaa eriday tababaraheedii Tony Pulis kadib markii ay natiijo aan wanaagsanayn soo hoysay kooxda. ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda ay la dhesho Chelsea ayaa 4-0 lagu garaacay. West Bromwich ayaa hadda kaalinta 17aad ku jirta shaxda kala horeynta horyaalka Premier League England. tababaraha cusub ee West Ham ayaa isna waa David Moyes waxa uu sheegay inuu ku niyad jabsan yahay qaab ciyaareedka kooxdaasi kadib markii ciyaartii ugu horeysay markii xilka loo dhiibay ay xalay kooxda Watford uga badisay 2-0. West Ham ayaa hadda ka mid ah 3 koox ee ugu hooseyso shaxda kala horeynta horyaalka Ingiriiska. caawana waxaa la dheeli doonaa kulan ka mid ah horyaalkaasi, waxaana is arki doonaa Brighton iyo kooxda Stoke City. wahagaag dhagaysta, weligaa ma maqashay sawirada gacanta la isaga qaado oo la leeyahay hadda khatar beeba keeneen? waa gobol ka tirsan Hindiya. sheekadaas yaan idinka diline Xasan Haybo soo akhriyay haynoo sheego. Atoosho aad baad u mahadsantahay. mas-uuliyiinta gobolka Karnataka ayaa bilaabay olole ay dadka kaga wacyigelinayaan halista ka dhalan karta dhaqamada sawir iska qaadista ee meelaha qaar la sameeyo. niman dhalinyaro ah ayaa meel dalxiis u tagay iyagoo sawir iska qaadaya ayaa waxaa la arkayaa mid ka mid a sawiradii ay iska qaadayeen oo uu ka muuqdo arday biyaha muxuu ahaa webi ay sawir iskaga qaadahayeen kusii quusahaya. muddo saacada kadib ayay tabeen in uu qof ka maqan yahay, waxaana meydkiisa laga helay biyaha hoostooda. maba ayna ogeyn ninka inuu sawiro galay. gadaal baa uun ka arkeen sawiradii inuu muxuu ahaa uu ka muuqanahayo isaga oo sii quusahaya. toddobaadyo kadib dhacdada 3 dhalinyaro ah ayuu tareen jiiray. way saxsaxdeen si ay sawir ugu galaan. tareenkii baan u soo dhawaa oo dul maray. marka arrintaas waxay sababtay in ay maamulku bilaabaan inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan. Atooshow, Hindiya waxaa ku nool 1.1 bilyan oo qof oo isticmaala taleefanada gacanta. 300 oo milyan oo ka mid ahna kuwa casriga ama taleefanada caaqilka loo yaqaan ayay isticmaalaan. bal inta ayna ka bixin Atoosh, adaa sawirada isku fiicnaydeen wali ma sigatay? wallahi sigasho mahe, aniga dhibaato badan baaban u galay oo waad aragtay oo sawirada waxay ka mid yihiin baraha bulshada waxa dadku lagu gaaro. marka hadda idaacadda kama sheegna maanta waxay naga soo gaartay Fartuun Axmed Ibraahim oo joogta dalka Yemen, waxayna baafinaysaa Ismaaciil Maxamed Aadan. waxaana war dambeysay isagoo ku sugan magaalada Jidda dalka Sacuudiga sanadii 2014. haddaba haddii uu maqlayo Ismaaciil Maxamed Aadan ama bay jirto cid garanaysa kiisa la gaarsiiyo Fartuun Axmed Ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ku leedahay dalka Yemen. ayaan Suleymaan Xiis joogto dalka Yemen waxay baafinaysaa Fawzi Axmed Galan. waxa ugu war dambeysay isagoo ku sugan Boosaaso 2010. haddaba haddii uu maqlayo Fawzi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo ayaan Suleymaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga Al-Kharaz. Maxamed Xaashi Maxamuud oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kala Farxaan Axmed Xuseen, Zamzam Muuse Cilmi, ayaan le Farxaan Axmed iyo dhammaan reer Farxaan. waxa ugu war dambeysay iyagoo ku sugan magaalada Hargeysa sanadii 2008. haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Maxamed Xaashi Maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen. Yuusuf Cabdi Cali Warsame oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Maxamed Cabdi Cali Warsame. waxa ugu war dambeysay isagoo ku sugan Ceergaabo 2009. haddaba haddii uu maqlayo Axmed Cabdi Cali Warsame ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Yuusuf Cabdi Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Saacid Cabdi Xasan oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Ruqiya Xasan Xuseen. waxaana ugu war dambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2011. haddaba haddii ayna maqlayso Ruqiya Xasan Xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Saacid Cabdi Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen. Shamsa Cali Xaaji oo joogto dalka Yemen waxay baafinaysaa Khalid Maxamed Qaasim. waxa ugu war
dambeysay isagoo ku sugan qaahiro 2015 haddaba haddii uuna maqlayo qaalid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Shamse Cali Xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Fawziya Nuur Xasan oo jirta dalka Yemen waxay Khadra Maxamed Warsame waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska sanadii 2007 haddaba ayna maqlayso Khadra Maxamed Warsame ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Fawziya Nuur Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. suufi maco muumin oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Aways Maxamed Sheekh Nuurow waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan 2016 haddaba haddii uu maqlayo Aways Maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo suufi maco iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Fardows Ahmed Jimcaale oo joogta dalka Yemen waxay baafinaysaa Siid Cali Maxamed Muuse waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Siid Cali Maxamed Muuse ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Fardows Ahmed Jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Akram Maxamed muslix oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Daahir Axmed Ciise waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho 2011 haddaba haddii uu maqlayo Daahir Axmed Ciise ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Akram Maxamed muslix iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Cabdiraxmaan Axmed Abuukar oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Maryan Maxamed Abuukar waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sweden sanadii 2004 haddaba haddii ay maqlayso Maryan Maxamed Abuukar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdiraxmaan Axmed Abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Cabdiraxmaan Xasan Odawa oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdisamed Xasan Odawa Xayaad Xasan Odawa iyo Faaduma Xasan Odawa waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Jowhar 2019 haddaba haddii ay maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Xasan Odawa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 735356 Saamiya Nuux Jimcaale oo joogta dalka Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Batula Nuux Jimcaale Shamse Nuux Jimcaale iyo Xasan Nuux Jimcaale waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 2010 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Saamiya Nuux Jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Nuurdiin Axmed Sacad oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Nuuraani Axmed Sacad iyo Sahruuni Axmed Sacad waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2006 haddaba haddii ay maqlayaan Nuuraani iyo Sahruuni ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Nuurdiin Axmed Sacad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 735356 Bashiir Nuur Daahir oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Maxamed Nuur Daahir Axmed Nuur Daahir Xalima Nuur Daahir iyo Faaduma Nuur Daahir dhammaan dadkaasina waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadii 1996 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Bashiir Nuur Daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Xirsi Jaamac Cabdiweli oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Daahir Jaamac Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac Cabdiweli iyo Ayaan Jaamac Cabdiweli waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Boosaaso 2019 haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Xirsi Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 735356 Xuseen Gaabo Cali oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Ismaan Gaabo Cali Cabdiqaadir Gaabo Cali Cabdinaasir Gaabo Cali Xaawa Gaabo Cali iyo Fawziya Gaabo Cali dhammaan dadkaasina waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1999 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa haddaba haddii ay maqlayaan reer Cali Warsame ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Baarliin Cali Warsame iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 735356 Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdinuur Sheekh Cumar Booste Sheekh Cumar iyo Faaduma Sheekh Cumar dhammaan dadkaasina waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2002 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen ama taleefanka nambarkiisu yahay 735356 752
nuur maxamed kulmiye oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah ismaaciil maxamed kulmiye abuukar maxamed kulmiye iyo xaawa maxamed kulmiye waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo nuur maxamed kulmiye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 7353565752 shukri dirir jaamac oo joogta dalka yemenna waxay baafinaysaa dadka kale ah xaawa dirir jaamac shamsa dirir jaamac iyo cumar dirir jaamac dhammaan dadkaasina waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan afgooye soomaaliya sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shukri dirir jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen maxamed cabdulqaadir bare oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah axmed cabdulqaadir bare shukri cabdulqaadir bare iyo hodan cabdulqaadir bare waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan baydhabo 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maxamed cabdulqaadir bare iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen luul xasan diiriya oo joogta dalka yemenna waxay baafinaysaa dadka kale ah leyla xasan diiriya iyo axmed xasan diiriya waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada beledweyne sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan leylo iyo axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo luul xasan diiriya iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen maxamed cali abuukar oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah axmed cali abuukar caasha cali abuukar iyo faadumo cali abuukar waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maxamed cali abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 7353565752 cabdulaahi dhaqane shire oo jooga dalka yemenna waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdinaasir dhaqane shire daawud dhaqane shire iyo xaliimo dhaqane shire dhammaan dadkaasina waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada beledweyne sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdulaahi dhaqane shire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen qadra cusmaan jeelle oo joogta yemen waxay baafinaysaa duniya cusmaan jeelle iyo maxamed cusmaan jeelle waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan duniya iyo maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo qadra cusmaan jeelle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 7353565752 xamsata amiin sheegow xasna amiin sheegow iyo abaanuur amiin sheegow waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan marka soomaaliya sanadii 2000 ayaan cabdulaahi xirsi oo joogta yemen waxay baafinaysaa ruqya cabdulaahi xirsi fartuun cabdulaahi xirsi iyo baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka 15 haddaba haddii uuna maqlayo xasan cumar diir shariifo xasan xuseen oo joogta isla yemen waxay baafinaysaa shamse xasan xuseen xamza xasan xuseen xuseen xasan xuseen waxaan haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shariifo xasan xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 7353565752 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay aamin cumar sooyaan oo joogta dalka yemen waxayna baafinaysaa dadka kale ah maryan cumar sooyaan canab cumar sooyaan cismaan cumar sooyaan iyo mahad cumar sooyaan dhammaan dadkaasina waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada jowhar sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo aamin cumar sooyaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen ama taleefanka nambarkiisu yahay 753567 baafintiina maanta waa naga intaa way mahadsan yihiin asxaabtii baafinta wararkeenana waxaa ugu waaweynaa maxkamadda ugu sarraysa dalka kenya oo maanta go'aan ka gaartay dacwad ka dhan ahayd doorashada dhowaanta dhacday maxkamadduna waxay tuurtay oo ay waxba kama jiraan ka soo qaaday dacwaddaasi waxaa sii dhacaya wakhtigii kama dambayska ee xisbiga talada haya ee dalka zimbabwe uu qabtay madaxweyne robert mugabe idaacaddii waa naga intaas waxaa noo ballan ah galabta hadduu allaha awoodda la ogolaado 5 marka ay afrikada bari tahay inta ka horraysa waa anigoo cabdirasaaq xaaji catoosha cabdiqaadir yuusuf cali oo idaacadda soo saaray tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo